xanuunka dhibaato kalaaba ka sii dhalatay oo in dib social media ay u sii gashay in ay dhimatay bal in xaaladda iga kabo maxamed aniga iga kula hadlaya laba jeer horaan dhintay anigoo nool oo ay soo dhigeen laba jeer jira dad ay aad u jecel oo dalka iyo dibadiisaba jooga annagaba dadkaas naga xun maalinka dhawid wallahi waan aad baan uga naxay ilaa hadda jawiga isma saxsana sidii aan geerida saafo uma geeridana waaba ka soo horeysa habaarko aan ahaantayda warwar bay igu furtayo anaga qudhayda warwar bay nagu fureysaa maamada habaarka laga galay ay imika way wanaagsan tahay alxamdulillah in ay ku jirtaa soo dhaweynaya xaafadii aad ku ciyaari jirtay adigoo la geeyo jiray iyo hadal sagaal jiray wuxuu noqday wariye weyn anigu waxaan noqday xaalada noqoto dadka oo dhan ma fiilo kale taariikhda ilma fiilo kale bal dadka hadda in yar yar xasuus isag saaxiib iska warray soo dhawow marka hore oo soo dhaweynaa bal xaaladda ka war jumcada wanaagsan baa leeyahay xaaj maxamed waa wax aad loogu farxo maxamed wuxuu ka mid yahay asxaabta ilaa yaraantii aan isla soo dhaqannay maxamed waxaan kubadda ku wada ciyaari jirnay bartaa maantana iyadoo wax walba ay sidii iska duwan yihiin la kala mashquulay maxamed wuxuu noqday wariye weyn anigu waxaan noqday xaalada noqoto dadka oo dhan tiktoker wiil dadka oo dhan garaya baad noqotay marka soo dhaweynaya horta maxamed ugu horreyntii waxaad xaafad maanta waxaad muuqaalkaa ku duwanaysaa xaafad iska jaam garaysan yesaka faysal waxa weeye beriga kubadda halka ku ciyaari jiray dadka jaarka ama xaafadaha degan waxa weeyaan qof inagu mashquul jiray xitaa inagu harraameen aniga jirno waxa weeye iska habiya baa waxa lama aqoon laakiin imika wax xusub runtii xaafadiina ku soo socday masaajidkan ka soo laabtay ilaa inta anaga suunka ka soo baxay mobilkayga ku dubi dad badan waxa weeyaan xaarkiisa kiiga yoro kana maxbuud duubayo marka waxa weeye taas waxay muujinaysaa in xaafadiina waxa weeye si weyn adiga iyo xaafadda ay kala dhibantiino telefoonka waxa weeye aad la isaga ilaaliyo aad bay soo ilaaliyaan soo dhaweynaya xaafadda halka ku ciyaari jirtay adigoo la geeyo jiray hadal sagaal jiray su'aal baan kaa weydiinaya saaxiib waxa weeyaan maadaama inta badan dadka tiktok kugu xiran ay xaafadaada ku jirto waxa weeye marar badan wax la arkaa xaafadaada weeye ama way ugu mashquulsan yihiin ama waxay leeyihiin muuqaal bay ka jireen ama waxa weeye way ka dhaxaleen video aan duubay biyana waxa weeye dadka community ku soo gala ama waxa weeye meelaha ka qabsan kulan maalmo badan naga hadlaysa wallahi inta weeyay bad baadan wallahi markii hore waxaan bad ku jiray ayaan markii dambana bad sii galay hadda aad bay dacwoodu jiraan waxaad saas soo tagay saaka maama xaafadda kamid ah saas baan lagu yiri waxa la yiraahdaa xaafadiina soo karbaashay meedaan daawan gaayo wiilkayga waxa doonaan leeyahay marka xumaanta kale ma jirto way dadku baan iska fahminaanahay يا لبدي waxaan ka xasuustaa anigu de kale intii yaraantii kubaddi markaan wada ciyaari jirnay xilligii boodboodada kale marka la soo dhaafo waxa runtii aan xasuustaa waqtigii ilma fiilo kale daawadaasha waxa weeye qaar ka mid ah ilma fiilo garanaya bal adigu waxa weeyaan taariikhda ilma fiilo kale bal dadka hadda in yar yar xasuus runtii de waxay ahayd style waxa weeyaan ama dhalinyaro waxa weeye si gaar u labisan jirtay oo runtii anigu ma xasuusto ilma fiilo kale maxaad ka xasuustaa runtii way yartay dadka waqtigaas garanaya waqtigaas nala socday ولو دي dadka badankooda ay joogaan dadka badankoodii ay la kala damaystireen kala yihiin horta ugu horeynta aad baan halkan uga salaamaya ilmo rag dumar way kala magaaloobeen qaarkood way guursadeen qaarkood way dhoofeen qaarkood barbaray joogaan qaarkood asxaab badan uu ka mid yahay Cabdi Cali Cadaan halka ka salaamayo oo wali isagii aan sidii isku soo xiriirino runtii waxay ahayd waqti ciyaarnimada la soo dhaafay waxay ahayd barnaamij aan anagu keenay gobolka soo gelinay dhalinyaro iska libsanaysa qol leh samicadoodu leh labsun iyo badankoodu labsun ka shaqeynaya marka markii dambe waa bay sii fiday ilmo hebel kale de wax jiray intaas oo kooxood oo dambe wax weeyaan baa jiray iyaguna wax weey intii ka sii samaystay kadib markii ay barnaamijkii uu sii fiday annagu waxaan maadaama nahay intii old school dadka keenay farahan ka qaadnay ilma fiilo kale runtii anigu inta xasuusto wax weeye waxaan dad dress gaar ah ku labisano dharka wax weeye la wada sharganayo la yiraahdo marka waxaan soo iibsanaa dharka marka modelka dhalinyaradu waxa weeye ilaa kabihii fil oo kale dhar surwaaladii iyo fanaanadii isku eeka garanaysa heer waxay gaareen dadka caadiga dadkii iskooda u labista saddex qof labisan ba oran jiray ilma filaati magaca ilma fiilo kale runtii sidee ku baxay modelka waxa weeye modelka fiilo ku qornaa ba ay ku baxay kabahaas waxa weeye fashion ka xilliga la isticmaali jiray mar waxay shirkad labis fila beriga ninka shirkadda badan soo daba baxay marka shirkad labis oo labiska yacni modelka u dambeeyay soo saarta shirkadaas ayaa jirtay markaas la jigeed maadaama aan dharkan ku labisanaana badanka fanaanadaha iyo surwaaladuba ay fil lahaayeen ma yaqaan labana saa ku qaadan way runtii rag badan wax weeyba fil iyagu lahaayo waxa ka salaamay Shaakir iyo Cabdi iyo waxa weeyaan iyo rag badan wax weeye magacyadooda iyo iswada garanay iyagu maanta
aad iyo aad baan kaga mahad celin waqtigaaga waxa weeye saaxiib salaad baynu ka nimi jaar baynu dhahay oo imka qodheeda kama fogiyo halkan dambaan diganahay waxa weeye maalmo dhowto waxa si weyn Facebook iyo waxa weeye lagu hadalay TikTok in ay xanuunsanayso oo waxa weeye muuqaal la soo dhigay adiga ku dhawaad soo dhigisay bal imika xaaladda ay ka horta maxamed oo aad baan u wanaagsan tahay xaaladeedu imika nimcay ku jirtaa mana yahayn xanuun sidaas riski ah oo aan oran karo waa xanuun weyn oo yacni sida loo buunbuuniyo ayuu xoogaa yar xanuunsanaysay xanuunka dhibaato kalaaba ka sii dhalatay oo in dib social media ay u sii gashay in ay dhimatay oo daraad iyo shalayba ku jirtay walow markii dambe aan anigu markiiba aan soo geliyay oo markii dambe aad uga hadlay ayay imika way wanaagsan tahay alxamdulillah nimcay ku jirtaa waxaanan markii horeba u wadnay oo ahayd inaan dhakhtar xaaladeeda caafimaad sheekin ku sameeya tiina insha Allah way noo suurtagelaysaa wax yar baa naga qabyo ah xaaladeeduna aad bay u wanaagsan tahay سكيف ساعات سؤال كويدي حويان سكيو dad baa jira qofku haduu xanuusto dadkii social media la isticmaalaya runtii marka qofku xanuunsanayo waa laga dareemayaa barihi bulshada uu ka maqraanaya ama wuxuu soo dhigay xaalad uu ku jiro xoraya waa xanuunsanaya halay soo duceeyo si dadkii family bay aad moodaa inay noqdeen dadkii hooyo ku xidhnaa qofka iyo sagiiba marka dad badan baa jira wax way ka faa'iideystaan taas soo dhigaya walba ay dhibatay in wax way xaaladeedu ay halis ku jirto maanta dadka maxaad fariin u diraysaa ugu horreyntii fariin waxaan halkan ugu dirayaa horta aniga wax dhibaato ii keenmayso oo maxamed oo aniga kula hadlaya laba jeer hore aan dhintay anigoo nool oo ay soo dhigeen laba jeer hore ayay soo dhigeen inaan dhintay oo media aad u galgisho oo waliba mar aan media ka yara maqnaa oo hawlo shaqeeyo aan waqti aan shaqooyinkayga iskaga mashquulsanaa ahayd haddaba tan ayayaa timid waxa jira dad ayay aad u jecel oo dalka iyo dabadiisaba jooga anagu waa ka midna oo qaarkood numberkayga baabad haysaa qaarkood number aanan kala haynin oo aad uga warwaraya dadka waxaan leeyahay dadka aad dhibaysaan ee hagartaaminaysaan aad kaga nixinaysaan haddii aydan idinku damiir naxa aan idinku jirin dadka ha laga daayo annagaba dadkaas aan naga xun maalinkii dhaweyd wallahi waan aad baan uga naxay taleefankaygaas midha kun call qaar ooyaya qaar naxsan qaar shoogay qaar oo muuqaalada dambe aan kaga hadlayay aan u sheegay ay caafimaad qabto ay qaarkood arkeenaa ilaa hadda jawigiisu isma saxsana sida aan geerida saafo maqlay waana dareemi karaya waxaan leeyahay saaf maxamed horta waqtigeeda iyo timekeeda dhaafinayso ama jeclaada ama nacbaada timekii uu ilaahay u qoray in ay geeriyoonaysaa marka waxaan idin odhan lahaa habaarka laga daayo geeridana waaba ka soo horeysa habaarko aan ahaantayda warwar bay igu furtayoo hadda ka hor waxaan xasuustaa abwaan sooraan ilaahay u naxariistay isagoo aan dhimanin baa tiraba 3 jeer hore la soo gelinayay uu geeriyooday geeridiisuna waxa ka dambeeyay marka anaga qudhayda warwar bay nagu furaysaa maamada habaarka laga daayo waxaan leenahay dadka runtii sida khaldan uga faa'iideysta xanuunku wax weey wax ilaahay keeno geeridana wax weey qof walba ku xukumayo inaga iyo wax weey kuwa beenta sheegayaaba wax weey maalin bay leeyihiin oo dhimanayaan waxaan leenahay dadka laga waantoobo qof walba wax weey geeridu ka dambeysaayo waa lagu xisaabinaya maanta dad raado hebel baa dhintay wax weey aakhirade adigu baad dakiis ka qaadayo oo qofkii isagoo dhibanaad been ka sheegto waxa weey in badan oo kamid ah waxa suurtagal ah in ay qof saasoo kale ugu qaraabteen oo yiraahdeen wuu dhintay laakiin qofkii wax weey kadib uu geeriyooday isagoo qofkii la cafis weydiisan haweeyeen dambigiina loo qoray oo qofkii la dhintay taa ku akhrisaygina baan leenahay saaxiib aad baad mahadsan tahay waxaan maanta runtii soo xasuusanayaa waqtigii ciyaalnimo iyo carruurnimo iyo wax weeye anagoo sagaal jir ama kaba yar baan iskii jirnay saaxiib aad baan ku mahad celinaya waqtiga gaarka waana ku salaamaysaa sidoo kale